الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم ما بعد. وسورة البقرة أي نكبل بين آيات بقول استحيا كنتم. قال الله تعالى إلهي بأوحل يا أيها الذين آمنوا دتك إلهي رميو استعينوا حق قرقار ستان وقرب ستان بالصبر والصلاة صبر كأي الصلاة بلا يوينك ككاشرة إن الله مع الصابرين إلهي وحوه لنا يا بربر تاقني هاي ذاتك درادي وصبره ولا تقولوا هوراننا لمن يقتل في سبيل الله ذاتك اللي قد لي جهادك أموات ويدنتين هوراننا بل ما يدماننا أحيان وينولي ولكن لا تشعرون ويدان قرنين. aayaddu waxay hordhac u tahay iyadoo ilaahay uu nabarayo sunnada iyo soo jiraanka iyo sooyaalka adduunyada iyo sida u soconayso. marka in la imtixaani doono aayaadka dambe ilaahay uu xusay imtixaanka adduunyada waxyaabaha lagaga gudbi karo waxa kamid ah inaynu ogaanaynu ku dadaalo labada cibaado ee midna sabirka la yiraahdo midna salaada. waa laba cibaado inaad ilaahay u sabirtaana waa cibaado. waxa kaloo cibaado ah dee salaadii cibaadooyinkaba weyn markaad labadaa ku dadaalayso waxa kuu fududaanaya musiibooyinka iyo balaayooyinka. waayo culayskii fuuli lahaa maskaxda iyo qalbiga ayaa kaa degaya. qofku meeshuu ka tamariyaana maaha jidhka waa moralka iyo maskaxda. marka haddaad isqanciso aad degan tahay dikrigan ilaahayna aad ku dadaasho waabaad iska degaysa. balaadii doontaaba ha dhacdo dhinacay doontaa ka qarxdo shidaba kuma haysataba baba cuslidba. sabirka iyo salaada gargaarsada ilaahay maciyadiisa iyo wehelkiisina waa helaysa. marka inaad wehelka ilaahay hesho waxaad ku helaysaa sabirka iyo salaada. inaad adkaysi musiibada u heshana waxaad ku helaysaa sabirka iyo salaada. waxay isweydiin la qofku hadduu sabri waayo salaadi waayo maxaa jira dee uu silci iyo darxuma ayaa ku dhici doona. sabir la'aantu balaayada miyay kaa dulqaadaysa kaama dulqaadayso balse waad u nuglaanaysaa. markaad nuglaatana baroortunbaa kugu sii badanaysa iyo qaylada labaasunbaa kugu sii badanaya. go-aamadii kale aad qaadan lahayd iyo horumarkii iyo xalkii wixii o dhan baa meesha ka baxaya. salaaduna wax weyn wey. iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin. nabiyullaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam kaana idaa xasabahu amru salla arrin weyni markuu ku yimaado dee wuu tukan jiray. mid faraluu tukanaya hadduu waktigu ku beegan yahay haddii kalena sunne arrimo way u furfurmaya. maciyada ilaahay waa maciyatun khaasa wa maciyatun caama. tani waa maciyadii khaaska ahaydoo takuunu bilcawni waannasr. mar hadduu ilaahay ku yidhi anaa ku garab taagan bal qofka ilaahay weheshanaya ee wehelkii ilaahay la jirkii ilaahay haystaa dee ma iilanayo. ilaahay baa toosinaya subxaana wa tacaala. waxyaabaha lagu sabrayaa way badan yihin. xaggan dambe waxaynu ku arki doonaa laba arrimood. waxaad ku sabraysaa cibaadada. waxaa laga sabrayaa xaaraanta iyo dembiga. waxaa lagu sabrayaa jihaadka. waxaa lagu sabrayaa balaayooyinka ku dhacaya. waxaa lagu sabrayaa cilmiga barashadiisa. waxaa lagu sabrayaa dacwadda faafinteeda noloshu dhinac kastaba. marka halkan waxa soo socota jihaadkii waa sabir buu u baahan yahay. musiibooyinka ka dambeeya dhici doona sabir bay u baahan yihiin. kullu dalik noloshuba macno ma yeelata sabir la'aantii. dadka jihaadka lagu dilo ha odhanina way dhinteen way nool yihiin nololaydaan garanayn. sidaasuu ilaahay xusay subxaana wa tacala. ayaddu waxay ammaan u tahay dadkii mujaahidiinta ahaa ee ku shahiiday dagaalka gaalada. liman yuqtalu ma aha ciddii la diloo dhan maaha laakiin lifaaq buu ilaahay raaciyey fii sabiili illaah. nebi maxamed waxaa la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam dee dadkii waa dhimanayaanoo qof wuxuu u dagaalamayaa qabyaalad mid kale wuxuu u dagaalamayaa si loo arko makaanadiisa oo inuu geesi yahay loo ogaado. qaar muuqaal qaar maslaxad yaa jihaadka ku jira wuxuu man qaatala litakuuna kalimatu llahi hiya alculya. dee qofka diinta ilaahay si ay u kor noqoto u dagaalamaya
kaasaa ayaa jihaadka ku jira markuu ku shahiidana xayaata barzakhiya nolol caalamka hoose abuu nool yahay nebigu hadduu inoo sii fasiray calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiixa wuxuu ku sheegay dadkaa shuhaadada ah shimbiro cagaaran ayaa ilaahay ruuxdooda u gelinayaayoo jannada daaqaya oo waxay u hoyanayaan carshuraxmaanka tirigyar suran ayay halkaasi u hoyanayaan markaa dee imika inama dhex joogaanoo ma noolo oo dee way xabaalan yihiin macnaheedu waxa weeye dadka caadiga xabaalo la mid maaha ee xayaatadoodu waa xayaato qiimo badan ilaahay ku hambaliyeeyey aada iyo aada u fiican oo la tamaniyi karo wuxuu xusay nebigu calayhi salaatu wasalaam si gaara inuu ilaahay ula hadlay dadkaa shuhaadada ah oo uu ku yidhi maxaa u baahantii markay arkeen codsigaa ilaahay u soo jeeday waxay dhahan waxaan u baahannahay inaad adduunkii nagu celiso aanu soo shahiidno intaasoo jeer si derajooyinku noogu kordhaan wax kalun weydiista baa lay adduunka hadduu ina bani aadam ka yimaado laguma celiyeen arrimahaas waa arrimihii sabirka u baahnaa maxaa kale sabirka u baahan ilaahay baa sheego wuxuu uhi walanabluwannakum wallaahi buu ilahay wuu isku dhaartayoo nabluwannakum waanu idin imtixaani doonaa oonu idin balayn doonaa bishayin waxbaanu idinku jirabi min alkhawfi cabsi ah waljuuci gaajo ah wanaqsin min alamwaal iyo xoolahoonu idinka yarayno walanfusi dadkoonu idinka dilo wahamaraati midhahoonu idinka bi'inno wabashiri saabiriin dadka sabraya u bushaaray buu ilaahay subxaana wa tacaala waa kuwee talow waa kuwa edab noocee leh aladiina kuwii wey idaa asaabatum musiiba kolkay balaayadu ku habsato qaaluu waxay idhaahdaan ma qaylqayliyaane inaa lilaah annaga ilaahay unbaaba iska kaaya leh wa innaa ilayhi raajicuun annaguna isagaanu noqonayna hortegaynaa ulaa'ika kuwa edabtaa wanaagsan leh calayhim salawaatu dushooda waxa saaran ammaan ilaahay uu ammaanay oo min rabbihim ilaahooda xaggiisa ka timi waraxmatu naxariis baa saaran wa ulaa'ika hum lmuhtaduun kuwaasoo keliya hanuunsan buu ilaahay subxaana waa dhaar baa ka dhacday sunnaha adduunyada haddaad doonaysa inaad la qabsato nusuustaasaad aada u dhuganaysa aad u dhuuxaysa aad u dhadhaminaysa marka aayaddu waxayna baraysaa ama inaga dulqaadaysa waxaa loo yaqaano almarad saamit almarad asaamit cudurka aamusan waxay u bixiyeen culimmada suluuga iyo dhaqanka wanaagsan ka warramaa cudurka aamusana dadka ku dhaca muxuu yahay waa atacawudu cala nicma nicmadu ilaahay ku siiyey inay caadi kuu noqoto markay nicmada ilaahay caadi kuu noqoto ee balaayooyinkanoo kaa maqan daraaddeed waxaa kaa yaraanaya shukriga iyo mahadnaqa waad iska caafimaad qabtaa caadi buu kula yahay maalintaad weydun baad garanaysa caruur baad leedahay maalintay kaa dhintaan ayaad garanaysa dunyo fara badan baad leedahay nabadgelyaad haysataa waxaasoo dhani caadi bay kuu yihiin waaba laga yaabaa inaad u qaadato waxaan iska leedahay inuu yahay oo xoog iyo xirfadaad leedahay aad ku heshayba marka nicmooyinkan qofka waaye xagga dambe ka hela ama loo soo celiyo shukrigu aada u badiya laakiin adiga weli waanay ku dhaafin oo waad la qabsatayoo taasaa waxay keenaysaa inay shukrigeedii ku dhaafiso marka dhibaatooyinka dadka haysta waxaa ka mid ah inay nicmadii u noqoto wax caadi ahoo intaa aynu wax kastood haysataaba wax caadiyaba ku yihi caadiga waxaa looga jeedaa waxaan istaahilin mahadnaq baad u aragtaa wax aada xaq u leedahay baad u aragtaa wax adugu aad kasbatay baad u aragtaa intaasoo dhan markaad isku qancinaysa mahadnaqba ma jirade laakiin marka balaayooyinkan wax ka mida dhirbaaxooyinkooda kugu dhacaan markaasaad mahadda usoo noqonaysa ama aada garanayso dhaar baa ka dhacday ilaahay baa isku dhaarto wuxuu hi intaasoo balaayaan idinku ridayaaye dadku wuu kala baxayaaye ka sabra ee istirjaacaa sameeye ilaahay u noqda kaasuu bushaaree kaasaa abaalka wanaagsan leh macnaheedu markaa si kale haddii loo dhigo waxa weeye halkan la jooga ama balaayo la-aanaysee ku talagal balaayo maalintay ku qabsato u qaadan waa yay kugu noqon xaawalaydaynu way xikmad badnaayo dad muslimiin ahayn way mahmaaheen waxay dhaha islaamuhu balaayo ama adayga kugu maqantay ama qayrkaa bay dhah soo maa balaayadu meel isma taagto ama adigay maalintaa kugu jiiftaa kugu fadhidaa hadday kaa maqan tahayna qayrkaabay ku maqan tahayoo
wareegaagii un baan weli la soo gaadhin oo sax weeye marka inta ay kaa maqan tahay ayay kugu dhicin atacawudu calaa nicma si uu balaayada ilaahay kaaga joojiyo ama kaaga yareeyo ugu mahadnaq nimcooyinkaad haysato markuu sidan qofku u ogsoon yahay sunnada adduunyaduba inay tahay meel aan lagu balaayo la'aanaynin dee marka darbadiisii timaadda wuxuu odhanayaa waa doorkaygii maanta ma ciyaalkii baa dhintay koow ma xoolihii baan waayey ma cadowgii baa igu habsaday ma cabsidii baa timi tan waa tii la sheegayoo waa markaygii wa dawaamu lxaali min almuxaal balaayadu inay joogto noqotaana ma aha wax jira ee way iska tegi doontaa waktigeeday qaadan ilaahay buu ugu mahadnaqayaa subxaana wa tacaala ama aan idhaahne wuxuu la imanayaa waajibkiisi bishayin waa nakiro nakirada waxyaabaha keenta waxaa ka mid a carabiga taqliil yaraan marka macnaheedu waxa weeye bishayin in yarun baabaan idinku ridaya balaayada ilaahay hadday iyadoo inoo soo kabagashatay timaado adhaxda ayayna jabaysa waxa laynagu ridayaa waa wax yarba wax yar bishayin in yarun baaba laydinku waxaan ka qaylinaynaaba waa in yarun balaayooyinka aakhire ku dambeeya allah inaga nabadgeliya marka loo eego tan adduunyada waaba bishayin in yarun waaya walanabluwannakum bishayin in kasta oo balaayada ku dhacaysa adduunyada bani aadamka way kala duwanta gaalka iyo faasiqa marka ku dhacdo waa cuquubatan lahu ilaahay wuu ku cuqubaynayaa qofka mu'minkaa markay ku dhacdana waa ibtilaa iyo ikhtibaar waa la imtixaanaya ama dembi baa lagaga dhaafaya ama daraja loogu dallacaya marka dadkan aad arkaysa darbadaha ay ku dhacayaan labadaa nooc bay ugu dhacayaan midna waa cuqubo loo soo qadimay oo lagu abaal marinayo sida qur-aanka meelo badan ka akhriyayso midna isagaabay faa'iido u tahay khawfku waa cabsi juucuna waa gaajo labadaas had iyo jeer iska ag dhowo marka la qaxo busaaradina way timaadaa nuqsaanta xooluhu mood iyo noolba dee dadka xoolaha ka dhinta ilaahay baa dila anfusta nafta waa ehelkaagii iyo asxaabtaadii iyo ummaddaadii oo lagaa dilo amaraadku waa midhihii oo beerihii baa ba'aya ila ilaahay baa soo bixiya subxaana wa tacaala ibnu kaiir raximah llah wuxuu idhaha tafsiir qariibaan arkoo sheegaya in xagga cibaadooyinka loo soo celiyo arrimahan oo dhan maadaama cibaado salaada laga soo hadlo cibaado jihaadka laga soo hadlo cibaado qiblada laga soo hadlay marka waxa wey walanabluwannakum bishayin ayaanu idinku imtixaanaynaa oo min alkhawfi cabsi ah cabsi ayaa la idinku ridayaa qofkii markaa uu waktiga jihaadka cabsado juuc waa gaajo ayaanu idinku imtixaani doonaa gaajaani waajibin doonaa waa soonkii dee soonkii le waa gaajo la waajibiye wanaqsin min alamwaal waxaan idinku imtixaani doonaa xoolahan idinka yareeyo dee saka dhiiba baan idin odhan si bakhaylkii ay u kala baxaan deeqsigu walanfus iyo nafihii oo iyadana dee ku dhiman doona sidayn horeba usoo xusnay jihaadkiina ku dhiman doona iyo sida kaleba wahamaraat iyo midhihii waa sida tafsiirka hore caama wabashiri saabiriin saabiriintu talo waa kuwe waa kuwa sifadaa dambe leh musiibadu markay ku dhacdo waxay leeyihin inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun ereygu muxuu u taagan yahay ereygu waa garnaqs ilaahay gar baad leedahay wey musiibadan aad nagu ridday gar baad ku leedahay kuma gardarid waayo inaa lilah annaga ilaahay baaba iska kaaya leh nebigu calayhi salaatu wasalaam muxuu laqimaya asxaabta markay musiiba ku dhacdo wuxuu iyada innagaba adaabtu waxa wey inaad tidhahda ina lilaahi maa akhad walahu maa acdaa wa kullu shayin cindahu biajalin musama ilaahay wuxuu iska leeyay wuxuu qaatay wuxuu bixiyana isagaa iska leh wax walibana agtiisa wakti bay leeyihin marka ina lilaahi ma acdaa lama odhanin akhada baa la soo horreysay wixii uu bixiyey ilaahay hadduu qaatay dee isagaa garu leh dadka sirta nolosha fahmay waa dadku nebigu gacmihiisa ku rabeeyey calayhi salaatu wasalaam asaxaaba ridwaan ullaahi calayh anas hooyadii anas ibnu maalik ereyadaasoo kaley lahayd hooyadii umu sulaym inanay dhashay baa xanuunsanayey odaygii abudalxa la odhan jiro asxaabi ahaa suuquu tegey inankii oo xanuunsanayo aga aada u buka intii uu maqnaabuu inanku dhinto meydkiisiiba habaysaye maydho
maray ku duubto meel aqalka dhinaciisaasa way dhigtay markii abidalxa yimi isagoo odayaalooto raashin doonayo markaa dee xaafaddii usoo habeenkii casho tegey inankii ka warrama buuri waa xaaladda ugu xasilanaabay ti xaaladdii oo inanku ugu deganaa ayuu galay dee waayo haddaa cashada nasiib isagii odayaashii way casheeyeenoo iyaduna waa taa isqurxisa ee iska diyaargarowday oo galmaabay sameeyeenba bal islaan jinaasaday u laabantahoo haddana aroosa ka war markii warkii dhammaaday dadkii xaafaddana way usii sheegtay wuxuu hi waxay ku tiri anunbaa odayga u sheegaye cid kale ushii sheegtaa yay jirin markii warkii dhammaaday kadib ayay la hadasho waxay tii waxaad ka warantaa abidalxow haddii qolo xaafadahan oo kale aynu caariye iyo irgiso ama wax ka soo ammaanaysano oo marka ay yidhaahdaan noo soo celiya aynu isxariifinaynu diidna ka war dee waa gardara buuri gardara wey haddaba inankaagii ilaahay baa lahaayoo qaatay ha gardaroonina sabir bayt macnaa haddaad naxdo ama qaylqayliso ama u qaadan weydo dee cid ammaanadii laga soo ammaanadii loo keenay markii la yidhi keen ama laga qaaday u qaadan weyduunbaad noqonaysaa bayt halkiibuu dib u fadhiistay isaguna oo dee warka islaantuba inay ka caqli badisayoo wuu samray subaxii buu nebiga u tegay calayhi salaatu wasalaam nebigana dee ilaahay baa waxyigiisa dhegta ugu hayo waa la sii ogeysiiyey markaa wuxuu yihi arrinkii a xalay samaysteen arrin la yaab le buu ahaa ilaahayna arooskiinnii xalay ha idiin barakeeya buu waaba loo barakeeyo in yar kadibba inan cabdilaahi la idhaa bay dhashay islaanti ala waa karaamaadka awliyada inankii bay tihi inankani waa inan duco ku dhashae nebigu mar labaad ha u duceeye qaadoo taxniig iyo tasmiyadii ha u soo sameeyey xanagaa timir loo marin jiro iyadoon wax kala dhadhamin baa nebi maxamed loo geeyayoo dhabtiisii shariifka ayd buu ku qabtayoo candhuftiisii shariifka ayd buu dhanxanaga u mariyayoo sidii buu ku barakoobay inankaas bal islaamaheenna tee laga helayaa waaye ama ku soo dhowaanaysaba dhimbiilaa ka soo duulaya intaan la soo dhowaanin baroorteedaba intaan xaafaddaba la imaninba ayaa baroorteeda idaacadda laga sii maqlaya waxaynu uga jeednaa daliilka usoo qaadanay tusaalayaasha salafuna saalix sabirkoodu uu badnaaye waxaynu uga jeednaa un innaa lilaah annaga ilaahay baa iska kaaya markaad aaminsan tahay adiga iyo xoolahaaga iyo ehelkaagaba inuu ilaahay leeyahy dee hadduu qaatay miyaad ku qabsanaysa isagaa ku siiye qiso kale curwat bnu zubayr oo dee zubayr ibnu cawaam uu dhalay wuxuu ka tegey madiina madaxweynihii muslimiinta ee shaam ayuu u tegey gaangarida bahashan la idhaaba cag kaga dhacday cagtay kaga dhacday hashan dee marka ay ku dhacdo qofka la jaro cagta markuu isagii u tegay dhaawacii uu ku arkay madaxweynihii u casuumnaa ayuu dhakhaatiirsi isugu yeedho wuxu uhi war bal ninkan odayga ah xanuunkiisa ha la eego dhakhtar waliba wuxu uhi waa in la jaro baashu way sii soconaysa cagtii baa la jaray isagoo dhakhtarkaba yaalla ayaa inankii uu jeclaa inamadiisa ka mid ahaayee markaa waday ee safarka la socday ayaa fardihii madaxweynaha iyabuu ku soo yaro dalxiisay meeshoodiioo farasun baaba laadoo wadnaha gooyo kow kaga siiyey isagoo dhakhtarka la jiifa ayaa la yidhi ka sabir inankaagiina dhimay markaasuu iskartay inuu imtixaanan yahayoo wuxuu hi ilaahay ow 7 wiil baad isiisayoo mid baa tegey 6na waad ii reebto waad ku mahadsantay 4 adinna waad isiiso xabad baa gooday 3 baad ii reebtayoo waad ku mahadsantay wakaa sidii baa markaa dee ku degayo khalaas ilaahay ugu barakeyntiisa markaad eegto waxa kuu hadhay ayaad ka samri doontaa waxaad kaa maqaneed weyday wa innaa ilayhi raajicuun waxay sheegaysaa waa la sii socdaa marka had iyo jeer qof kaa dhinto waxyaabaad isku qancinaysa waxaa ka mid a wa innaa ilayhi raajicuun dee adaaba ku daba jiraba kana hebel baa dhintay soo maaha ama wax ku dhaceen dee adaaba kuyuuga ku jire kaa intaad u barooran lahayd bal horta naftaadaba u barooro ile adaaba sii socdaba adigaaba wakhtigaagii soo socdaae imaam albukhaari wuxuu ihi markii saaxiibkii loo sheegay cabdillaahi bni cabdiraxmaan baa la wuu dhintay markaasuu yihi gabay buu tiriyo macnihiisu ahaa walee wuxuu yihi sida kolba qof lagugu sheegayo aad jeclayde lagugu warramayo warba wuxuu joogaa buui maalinta adiga lagugu warramo wa innaa ilayhi raajicuun ee la idhaahdo soomaad mararka qaarkood ku riyoonin
iyadoo aad dhimatay oo la leeyahay allah u naxariisto nin wanaagsan buu ahaa riyadaadii baad sii ayaa moogtay markaa waxaad dadkii baad dhegdhegaysanaysaayoo nin wanaagsan buu ahaa wuu dhintay allah u naxariisto isubaad soo toosaysaa mise waad noosha jaanis baaba lagu siiyeyba inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun waxay ku sharxayaan inaanu ilaahay gardarayn subxaana wa tacaala ulaa'ika calayhim salawaatu min rabbi waraxmatu waulaa'ika hum lmuhtaduun waxay isdaba socdaa musiibadii iyo aadaabtii iyo abaalmarintii saddexdaasa isdaba taagan marka hore musiibadii baa dhacday oo walanabluwannakum ba iyo intaa ka dambaysa haddana aadaabtii baa ku xigtay oo aladiina idaa asaabatum musiibatun qaaluu inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun haddana abaalmarintii baa ku xigtay oo ulaa'ika calayhim salawaatu min rabbihim waraxmatu waulaa'ika hum lmuhtaduun saddexdaasina waa abaalmarinta marka culimmadu waxay u badan yihiin ereyga salawaat inuu imika yahay hanaa ammaan min rabbihim ammaan ilaahay xaggiisa ka timi waayo salaaddu markeeda hore waa duco ducadu waa maxay waa baryo dee ilaahay wuu sii baryayaa ilaahay cidda kaluu baryayo wax inoo weydiinayo waa ayo sidaa daraaddeed salaadan ilaahay xaggiisa ka timi ee ilaahay uu ku salliyey awliyadiisa sidaa u sabirtay waa ammaan naxariis hanuun cumar binu khadaab baa sidaa u egay aayadda markaasuu arkay dee waxaa looga nuuriyey waxaan inagu la weyn dareerinaa une wuxuu saas u ego wuxuu uhi nicma alcidlaani wa nicma alcilaawa aayadda waxaa iga muuqanaya buuhi inay isu dheeli tiran tahay waa laba dhanrar iyo guradhig buuri waa luqaddii miyiga ma garanaysa awrka marka had iyo jeer la hadhuurinayo laba dhanrar baa la saaraa dhinacanna kiintaal baa laga saaraya dhinacanna kiintaal weyn si uu marka aanu u dheeliyin guradhig baa la saaraa in yaroo haafa oo luuqa ayaa bartanka la saaraya saddexdaasoo isku habaysan baa markaa la isku xidhayaa buui markaa labada isu dhigmaa waxa weeyaan buuhi salawaatu min rabbihim waraxma waulaa'ika hum lmuhtaduuna waa tii kale sii xidhaysa buu gibisha u xidhaysa meeshaa abaalmarin weyn baa ka dhacday oo isku qoofalan buu leeyahy mar kale wuxuu lahaa musiibadu cumar hadday ku dhacdo waxba ma yeesha buu midda u horraysa aan waxba u yeelayn horta diintaygama dhacda buu ilaahay wuu iga badbaadiyey diinta midda labaad dee musiibadu markay cumar ku dhacdo kama weyna markay dadka kale ku dhacdo balaayada dadka kale ku dhacdo unbaa dee cumarna ku dhacda midda saddexaadee lagu helaya waaba abaalmarintan bu maxaa baan u qaylin oo u qaadan waaye bu wahada ma aquluhu waastaqfir allah wallahu subxaanaه wa tacala aclam